الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مركور waxaan salaamayaa saxaafadda iyo dhamaan bulshada reer Galmudug gaar ahaan bulshada reer Guraceel. Waxaan halkan ka cadeynayaa in aysan jirin wax ciidamo dawladeed ah oo la wareegay saldhigan ama hawayraati wax ciidamo dawladeed oo soo galay saldhiga. Waxa jiro muuqaalo ama dad ay duubeen oo baraha bulshada dhigan la sheegayo taas hawayraati wax ka jira malaha in saldhigan ciidamo dawladeed ama la wareegeen ama ay magaalada soo galeen. dadka saldhiga joogay waa dadka Soomaaliyeed oo magaalada u dhashay waana imaan karaan waana joogi karaan ummadana waxay ka mid tahay ummadii loo shaqeynayay saldhiga iyo booliskana waxa ka dhaxaysa wada shaqeyn. Marka waxaan halkan ugu baaqayaa dadka yacni ma taqaanay faafinaya waxyaabaha noocaas deegaanka ka faafinaya waa la ogyahay waana la xisaabtamo doona haddii alla idmo kama aanan bixin saldhiga waan joognay ciidanku sidii iyagan u ahaayeen inkastoo shaqo ay jirto haddana ciidanku sidii iyagan u ahaayeen wax ka baxay saldhiga hawayraati waxaan ku mashquulsanay shaqo saldhigana waa aan joognay meelna waana bixin. Waxaan u jeedinayaa dadka noocaas oo jooga deegaanka ama meel kale ha joogaan waa ognahay dadka waxaas ka shaqeynayo oo barabagandada ummadda u sheegayo waana la xisaabtami doonaa haddii alla idmo insha Allah. wax hawayraati ciidan dawladeed la yiraahdo oo magaaladan ku jira ama soo galay ama u soo dhawaaday ma jiro. ciidamada ammaanka ku hayay al-sunna wal jamaaca degmada iyo haafaheeda dhan amnigeeduna waa sugayn. Waxaan rabaa sidoo kale inaan fariin u diro dadka mas'uuliyiinta sheeganaya ee hawdka ku jira hawdka inta muuqaalada ka soo duuba ama fariimaha ka soo qoray dhahay mas'uuliyiinta sheeganaya dhahay magaaladan qabsanay iyo ciidamada dawladda magaalada la wareegay. waxaan leeyahay nimankan hawdka ku jiro magaalada ciidan kama xigto waa meeshaad u dhalateen waa meeshaad ku dhasheen waa meeshaad yacni joogi doontaan. waxaan ugu baaqayaa in barabagandada noocaas ayaguna ay joojiyaan haddii alla